Waxaan keligay ku noolaa guri yar oo kiro ah oo ku yaal banaanka magaalada markii tani dhacday. Waxay ahayd guri hal dabaq ah oo ku yaal dhamaadka wado gaaban oo aan meel kale u habeenkii caadi ahaan aad ay u aamusnayd. Waxaan ka shaqayn jiray guriga anigoo sameynaya graphic design freelance ah. Sidaas darteed badanaa ma bixi jirin ilaa aan u baxdo inaan raashin soo iibsado. Marti badanaa ma iman jirin. Saaxiibaday badanay way fariin ii soo diri jireen ka hor inta aysan imaan. Taas waa sababta garaacay ugu horeeyay uu ahaa mid iga yaabiyay. Waxay ahayd qiyaastii 2:15 habeenimo maalin Khamiis. Waxaan joogay qolka fadhiga anigoo TV daawanaya markii aan maqlay 4 garaac oo adag oo ka dhacaya albaabka hore. Waxaan aamusiyay TV-ga oo sugay anigoo u maleynaya in laga yaabo inaan iska maleeyo. Kadib waxaa yimid 2 garaac oo kale. Waan istaagay oo u dhaqaaqay albaabka. Albaabka dhexdiisa waxaa ku yaal dalool yar oo la fiiriyo. Markii aan ka eegay waxaan arkay nin taagan banaanka guriga isagoo haya sanduuq kartoon ah oo cabirkiisu dhexdhexaad. Wuxuu xirnaa jaakad madow iyo koofiyad baseball ah. Wuxuu u ekaa qof caadi ah, laga yaabee da'diisu tahay 30. Waxaan furay albaabka, laakiin silsiladii ayaan ku haystay. Wuxuu isla markiiba yiri inuu leeyahay delivery u baahan saxiix. Wuxuu magaca ku akhriyay qalab yar oo gacanta lagu qaato. Ma ahayn magacayga, xitaa uma dhoweyn. Waxaan u sheegay inuu qaldan yahay adreeska. Wuxuu eegay sanduuqa, kadibna qalabka, kadibna dib ayuu ii eegay. Wuxuu si cod dheer ah u akhriyay adreeska. Waxay ahayd adreeskayga saxda ah. Waxaan u sheegay in qof magacaas leh uusan halkaa degnayn. Wuxuu igu dheegay ilbiriqsi ka badan intii loo baahnaa. Kadib wuxuu yiri in laga yaabo in la siiyay xog qaldan uuna dib ugu celin doono gaadhiga. Waxaan daawaday isagoo dib ugu soconayo jidka gurigayga hortiis. Waxaan filayay inaan arko gaari delivery ama ugu yaraan gaari meel u dhow yaal, laakiin waxba ma jirin. Wuxuu dhaafay sanduuqa boostada, kadibna wuxuu u leexday geeska dhamaadka wadada. Ma aanan arkin halka uu aaday. Waxaan xirtay albaabka oo qufulay. Waxaan isiri waa delivery shirkad yar ah ama darawal contractor ah oo aan lahayn gaari calaamadaysan. Habeenkii xigay ku dhawaad isla waqtigii saxda ahaa waxaa mar kale yimid 3 garaac. Markaan isla markiiba albaabka ma furin. Marka hore waxaan aaday beefolka. Wuxuu ahaa isla ninkii, isla jaakadii, isla sanduuqii. Albaabka ma furin. Waxaan kaliya ka hadlay albaabka gadaashiisa oo u sheegay inuu horay u yimid iyo in qof magacaas leh uusan halkaan degnayn. Isla markiiba jawaab ma bixin. Kadib wuxuu yiri wuxuu u baahan yahay kaliya saxiix. Isla markaana systemku muujinayo in package-ka caawa la keeno. Waxaan u sheegay inaanan u saxiixi doonin qof aanan aqoonin. Waxaa jiray aamusnaan dheer. Kadib wuxuu yiri okay oo dib ugu tallaabsaday albaabka. Waxaan ku sii nagaaday beefolka. Halkii uu isla markiiba ka tagi lahaa, wuxuu istaagay geeska boodhka isagoo eegaya guriga. Wuxuu si tartiib ah madaxiisa ugu jeediyay daaqadaha hore, kadibna dhinaca guriga, kadibna mar kale albaabka. Qiyaastii 15 ilbiriqsi kadib ugu dambeyn wuu ka tagay isagoo maraya drive-ga. Mar kale wax gaari ah ma arkin. Halkaas ayay bilaabatay inaan dareemo wax aanan sax ahayn. Habeenkii 3aad wax garaac ah ma jirin. Runtii waan nafisay. Waxaan isiri laga yaabaa inuu ogaaday qaladka. Xitaa waan iska kaftamay naftayda anigoo leh sida ay u yaab badnaan lahayd haddii uu mar kale yimaado. Habeenkii 4aad waxaan ku jiray jikada anigoo dhaqanayo saxamada qiyaastii 9 fiidnimo markii aan maqlay 4 garaac. Ma ahayn albaabka hore. Waxay ahayd dhinaca guriga u dhow daaqada qolka cuntada. Si tartiib ah ayaan u galay qolka cuntada oo aan eegay daaqada, laakiin qofna ma joogin. Kadib waxaan yimid 4 garaac oo kale oo ka dhacaya albaabka hore. Waxaan aaday beefolka. Wuxuuna ahaa isla ninkii, laakiin markaan ma uusan haysan sanduuq. Gacmihiisu way marnaayeen. Waxba ma aanan oran. Wuxuuna mar kale garaacay. Kadib wuu dib u tallaabsaday oo si toos ah u eegay beefolka. Waxaan ka dhaqaaqay albaabka si uusan u arkin dhaqdhaqaaq. Wax cod ahna ma samayn. Qiyaastii 30 ilbiriqsi kadib wuu jeestay oo wuu baxay. Waxaan sugay 5 daqiiqo oo buuxda ka hor inta aanan hubin daaqadaha. Waxaan ku wareegayay guriga anigoo nalalka damiyay oo ka eegayay daahiyada.
Waxaan arkay isagoo taagan dhinaca kale ee wadada agagaarka geedaha. Wuxuu si toos ah ugu jeeday gurigayga isagoo taagan. Qiyaastii 1 daqiiqo kadib wuxuu galay mugdiga. Wuu baxay. Wuxuuna mar kale qufulay dhammaan daaqadaha iyo albaabada inkastoo hore loo xiray. Maalintii xigtay waxaan wacay booliiska oo aan u sharxay wax dhacay. Sarkaalka aan la hadlay wuxuu yiri waxay u eg tahay qof isku dayaya inuu hubiyo in guriga la degan yahay. Wuxuu yiri mararka qaar tuugada waxay garaacaan si ay u arkaan haddii qof ka jawaabo ka hor inta aysan dambe u soo jabin. Wuxuu igu amray inaan rakibo kaamirado haddii aan awoodo, isla markaana aan waco 911 haddii ninkaasi soo laabto. Habeenkaas waxaan damiyay dhammaan nalalka hore ee guriga oo aan ku ekaaday qolkayga jiifka. Qiyaastii 2:45 isla waqtigii saxda ahaa waxaa yimid 4 garaac. Wax jawaab ah ma aanan bixin. Dhowr ilbiriqsi kadib waxaa yimid 4 kale, kadibna aamusnaan. Waxaan sugay qiyaastii 1 daqiiqo. Kadib waxaan maqlay wax kale, garaac jilicsan oo ka yimid dhabarka guriga. Kadib mar kale waxaan garwaaqsaday inay u eg tahay qof tijaabinayo albaabka dambe. Waxaan qabsaday taleefankayga oo si aamusnaan ah u galay hallway-ga. Waxaan maqlayay gacanta albaabka dambe oo si tartiib ah u wareegaysa, kadibna istaagaysa, kadibna mar kale wareegaysa. Waxaan wacay 911 sida la igu amray oo aan hoos u iri in qof isku dayayo in guriga soo galo. Intii aan taleefanka ku jiray, garaacii albaabka hore ayaa mar kale bilaabmay. Qofka dispatch-ka ayaa ii sheegay in booliis soo socdaan. Gacanta albaabka dambe way sii wareegaysay. Waxaa jiray in ka badan 1 qof. Kadib waxaan maqlay cod bir ah oo si fudud u hogmaya dhinaca albaabka. Qiyaastii 30 ilbiriqsi kadib wax walba way istaageen. Inkastoo aamusnaan buuxda jirtay, waxaan ku sii jiray taleefanka ilaa booliiska yimaadeen. Markii ay baarayeen banaanka guriga, waxay heleen calaamado cusub oo jabin albaabka dambe agtiisa gacanta. Sarkaalka wuxuu ii sheegay haddii aanan guriga joogin, albaabka si xoog ah ayaa loo furi lahaa. Way wareegeen laakiin ma aysan helin qof shaki leh. Habeenkii xigay waxaan degay apartment-ga walaalkay oo magaalada kale ku yaal. Qofna uba sheegin social media ama meel kale inaan guriga joogin. Kaliya waan baxay. Qiyaastii 9 fiidnimo taleefankayga wuu dhacay. Waxay ahayd deriskayga oo 2 guri iga fog. Waxay tiri qof ayaa taagan boojkayga oo si joogto ah u garaacaya. Waxay tiri ugu yaraan 5 daqiiqo ayuu halkaas taagnaa. Waxay i weydiisay haddii aan guriga joogo. Waxaan iri maya. Waxaan weydiiyay haddii uu leeyahay gaari. Waxay tiri gaari ma aysan arkin. Waxaan u sheegay inay wacdo booliiska. Booliis ayaa yimid oo su'aalo weydiiyay ninka. Habeenkaas dambe sarkaal ayaa i soo wacay oo ii sheegay in ninku sheegay inuu delivery keenay laakiin uu khalday. Ma uusan lahayn aqoonsi shirkad ID, mana uusan wadin gaari calaamadaysan. Waxay ugu digeen inuu ka fogaado guriga. 2 maalmood kadib boolisku way qabteen isagoo isku dayay inuu galo guri qofkii lahaa maqan yahay. Gaarigiisa dhexdiisa waxay ka heleen sanduuq kartoon ah oo madhan iyo scanner yar oo aan ku xirnayn shirkad delivery dhab ah. Su'aal weydiintii wuxuu qirtay inuu marka hore garaaci jiray isagoo wata package fake ah. Haddii qof ka jawaabo, wuxuu iska tagi jiray oo uu calaamadeyn jiray in guriga la degan yahay. Haddii aan qofna ka jawaabin kadib isku dayo badan, wuxuu soo laaban jiray oo xoog ayuu u geli jiray. Wuxuu u sheegay baarayaasha in mararka qaar garaaci jiray 2 habeen oo isku xigta si uu u arko haddii batamka isbedelo. Haddii hal habeen nalal shidan yihiin, habeenka xigana daman yihiin, wuxuu u malayn jiray guriga inuu madhan yahay. Markaan taas maqlay, waxaan garwaaqsaday sida aan ugu dhawaa inaan guriga joogin isbuucaas hore. Haddii aan iska indhatiri lahaa albaabka mid ka mid ah habeenadii hore, wuxuu u badan yahay inuu dib u soo laaban lahaa isagoo filaya in qofna uusan guriga ku jirin. Waxaan ka guuray guriga 3 bilood kadib markii kirada dhamaatay. Weli albaabka habeenkii ma furo ilaa aan si cad u ogaado qofka imanaya. Haddii qof si laba filaan ah u garaaco, waan aamusanahay oo marka hore waxaan fiiriyaa kaamiradaha. Haddii qof keeno package leh address-kayga laakiin aan magacayga ku qornayn xitaa uma dhowa albaabka. Sheekadayna maanta intaasay ku eg tahay. Fadlan muuqaalka noo like garee, channelkana subscribe saar. Aad iyo aad u mahadsantahay.